Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran janaalkeena youtube ee garatso isku soo noqod wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa barashada video editingka softwareka lagu magacaabo after effect maanta waxaan maraynaa casharkeenii shanaad waxaanu ku baran doonaa sida loo sameeyo text muuqaalkaaga lagu soo daro qoraal iyo shortcut ku jira after effect qaabka loo soo saarto iyo sida wax looga bedelo kusoo dhawow cashar aynu ku horeyne qoraalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu qurxiyo muuqaalka inuu qoraal leeyahay waxay ka qayb qaadanaysaa inuu noqdo mid qurux badan in la fahmi karo waxyaabaha uu muuqaalkan ka kooban yahay tusaale haddii aad qof waraysi laga qaadayo kale haddii aad aragtay meelahan oo kale lawarseed kasoo baxo kale kadibna uu ku qoran yahay qofka magaciisii ama muuqaal la raaciyay translate oo kale waxyaabahaas oo dhan waxay sahlaya inaan la fahmo waxa muuqaalkan uu ka kooban yahay after effectigu maaha waxyaaba la dhaqaajiyo kaliya inay yihiin logo animation iyo waxyaaba la mid ah laakiin wuu ku jiraa text animationka inaad nunuuxin kartid qoraal adigu aad soo qoratay balan ku tusiyo waxaa jira saddex waxyaabood oo aad kula soo bixi kartid qoraalkaaga kaasoo ku kaydsan after effect marka koowaad midda kuu sahlan waxa weeyaan halkan ay ku qoran tahay t horizontal type tool inaad ku dhufatid kadibna halkan oo kale markaad timaadid oo kale inaad halkan oo kale qaabkan intaad u weynaysid dhexdaas ka mid ah aad magacii ku qortid qaabka labaadna waxa weeyaan halkan oo kale inaad tiraahdo adoo meeshan joogo kale control iyo aad isla qabatid xarafka t control iyo xarafka t haddii aad isla qabatid ama tacda haddii aad isla qabatid qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa sidina wada jiidi doontaa ka saddexaad ee ugu dambeyn waxa weeyaan intaad halkan tagtid ay ku qoran tahay layer kadibna aad dooratid new layer markii aad tagtid kadib dooratid new waxaad sii tegaysaa halka ay ku qoran tahay text haddii aad text dooratid asagana halkan ayuu soo dhigi doonaa wax allaale waxa aad doontidna waad ku qoran kartaa saddexdaas waxyaabood aan ku sheegay saddexdaba waad kula soo bixi kartaa textiga tusaale hadda waxaan doonayaa inaan meeshaan magaca ku qoro garatso oo kale aan ku qoro hadda waxa ii saaran sida arkaysid farti ayaa ii soo baxday waxaan kaloo ku samayn doonaa fartan aad arkaysid inaan ka bedelo kalarka hadda ay ku fadhido oo buluuga ah inaan farta nuuceeda bedelo inaan italic ama bold ka dhigo sida aan photoshop kusoo aragnay iyo waxyaabaha farta lagu qurxiyo kale tusaale hadda fartii markii aan highlight gareeyo waxaan ku samayn doonaa waxaan tegi doonaa halka ay ku qoran tahay characterkani midabkan ugu koreeyahay oo buluuga oo midabka hadda ii dooran aan bedelo oo aan ka dhigo midabkan guduudka oo kale midkan ugu koreeyo kale aan doorto midabkan guduudka markii aan doortay hadda waad ujeedaa guduud ayay noqotay waxaan u baahanahay kan ka hooseeya waxa lagu magacaabaa stroke meeshaasna ayaa laga bedelaa halkaas ayaad click siinaysaa wuu soo kormarayaa waxaa lagu magacaabaa stroke waa midka hadba geesaha ka gala weeyaan hadda midabkan oo kale geesihiisa madowga ku jira oo kale weeyaan halkan waxaa laga bedelaa fartii nuuceeda tusaale haddii marka hore ay ahayd qaybahan oo kale weeyaan tusaale sambaladooda oo kuwaana hadba tii aad rabto ayaad ka dhiganaysaa ardaydii aan isla soo dhiganay maadadii ahayd photoshop halkan sidaad arkaysid waxaa ku qoran typicon haddii aad xasuusatid waxyaabihii waxa weeyaan lagu soo kordhinayay markii la sameynayay ID-ga iyo markii la sameynayay business card waxyaabihii waxa weeyaan mapkii iyo waxa weeyaan callinkii dhan aad dooranaynin haddii uu kugu jiro computerkaaga waxa weeyaan maalinkii aad ku shubatay halkan oo kale asna wuu kugu jiraa oo computerka wuu kugu jiraa haddii aadan ku shuban uusan kuu oolinna fadlan ila soo xiriir si aan kaaga caawiyo inaan ku tusiyo typicon kuusoo diro casharadii photoshop ayaan kusoo dhiganay ardayda dhigatayna way haystaan oo waxaan filayaa inuu computerkeeda ugu jiro tusaale hadda waxaan doortay fartan nuuceeda waan bedelay tan ayaan doortay qaybtaas ayaa hadda la soo baxay tusaale aan bedelo haddana mid kale si aan u doorto midaan ugu weyn oo kale ayaan doortay fartii waa kan qaabkan ayay noqotay si farteeda ugu soo muuqato waxaan rabaa marka inaan kalar ka bedelo aan ku laabto si aan hadda buluug weeyaan aan ka bedelo kalarkii buluugga ayaan ka dhigtay halkan aad arkaysid waxaan ku leeyahay haddii aad photoshop soo dhigatay waa fahamsan tahay waa sababta aan kuu leeyahay haddii aad photoshopka taqaanid after effect 20% waa taqaanaa halkan haddii aan dhanka u jiido farta waa weynaan haddii halkan u jeedana way yaraan waa inaad ila fahanto waad u malayn halkan oo kale waxaa laga bedelaa farta isku dhawaanshiyeeda automatic oo kale haddii aad ka qaadid oo waxyaabahan aad dooratid waxa weeyaan spaceka halkan galaya ayaa badanaya weeyaan marka automatic ayay ku fiican tahay halkaas sida qaabkaas oo kale ayaa ku wanaagsan halkan ku qoran tahay 90% haddii aan ka badiyo ama aan ka yaray waxa weeyaan farta geesaha inay u badato awal kanoo kale wuxuu ahaa xagee bay u badanaysay dhinacyadan inuu badatay qaybtan haddii aan ka badin wax noqonaysaa kor iyo hoos inuu badiyo waa x iyo y-dii oo kale weeyaan farta inaad qaabkaas iga fahanto kale u malayn bal halkan wax yar ayadana halkan tidan cayilan oo kale haddii aan doorto waa bold weeyaan fartii waxay noqonaysaa mid cayilan aan ka qaadaba mar kale sidii ugu soo noqoto tan haddii aan doortona waa italic
horta inay noqoto mid qaliir oo caata ama ay dhinac u jiifato weeyaan. Hadda xoogaa caata ma noqonayso bolding aan iska qaado. Hadda waxay noqonaysaa dhinac inay jiifato weeyaan oo chief oo kale italigaas inay noqoto. Qaybtan ku xigta hadda character haddii aan doorto qaybtan ku xigta paragraph-ka haddii aad kusoo aragtay markii waxyaabaha la qorqorayo kale halkan haddii aad taabto horta waxay noqonaysaa mid geeskan timaada. Halkan haddii aad doorto mid meesheeda joogta. qaybtan kale haddii aad doorto mid geeskan kala tagto weeyaan oo farta hadba dhinacyadeeda ayaa loo kala hadba dhinacan u qaad marna dhinaca u qaad. Marka inaad ila fahantay waad u malayn qaybtaas oo kale hadda dhexdeeda aan keeno farteeda qaybtii sida ay uga soo muuqato halkan oo kale. Hadda waxaan baranay character iyo paragraph. Horta waxa qurxiya oo habeeya hadba dhinaca lagu habeeyo waa labadan waxyaabood. Labadan mid saddexaad oo dheeriya ma jiro. Hadda maadaama fartan buluuga aan doorto waxaan u baahanahay fartii bal xoogaa inaan su'aalaha highlight oo kale aan saaro. kadibna aan waxaan tegayaa character si aan wax yar farta u yara gaabiyo halkan oo kale aan u jiido. Farta hadda waa i yaraatay. Markaas oo kale waxaan ku samayn doonaa aan soo jiido halkan oo kale si aan u dhigo. Fartaan dooranayaa. Halkaas oo kale aan ka doorto. kadibna aan imaado halkan oo kale aan soo jiido. Halkaas oo kale markii aan geeyo farta waxyaabaha qurxiyay sidaan hore ugu soo sheegnay waxa weeyaan inaad isticmaashid rectangle-ada halkan ku jiro oo kale left click cambar high cambar high kadibna waxaad dooranaysaa rectangle-kan oo kale kadibna halkan oo kale ku jiid qaabkaas oo kale stroke dhexdiisa oo kale waxba kuma jiraan field-ga halkan oo kale ka badi kadib midab sii markaan midab sii sidoo kale waka hadda buluug noqday stroke-gan waxaan u baahanahay inaan eber ka dhigo. Eber markaan ka dhiganayo dhinacan ayaa u jiidi doonaa ilaa aan eber geeyo. Hadda fartii midab buluug ayaa halkan ka muuqda. waxaan wuuna iga qariyay sidaad arkaysid oo fartii aan hadda soo doorto uma jeedo. Waxa ugu horeeya aan samayn karo waxa weeyaan farta ayaan ka kormarin halkaas oo kale aan geeyo. Fartii iyadana waa buluug tana waa buluug. Waxaan ku samayn bal fartii inaan midabkii ka bedelo aan ku laabto mar kale aan caddaan ka dhigo. waka hadda halkan sidaad arkaysid waxaad iga muuqdaa garaadso wax yar layerka ama shape-ka si aan iskaga habeeyo oo kale. waa kan hadda sidaad ujeedid waxa ii soo baxay far qurxoon iyo layer isdul saaran. Hadda waxaad moodaa midabka iyo buluugaba inay saas isku soo muuqan. insha Allah midabo anfaca oo kalarka si fiican usoo qurxiya waan isticmaali doonaa. Hadda sidaad arkaysid garaadso iyo shape-kan ka hooseeya si fiican ay iskugu soo baxeen oo qaabka aan meeshas ugu qoro oo kale way si fiican bay u muuqdaan. insha Allah hadda ma baranayno inaan nuuxino oo baalki scale iyo ku sameyno opacity-ga aan wax ka bedelno position-ka aan sameyno. waxaan baranaynaa bas farta in tiidaas laga soo saarto character-ka aan wax ku bedelno paragraph-ka aan ku sameyno farta dhinacyadeeda aan geyno. intaas haddii aad fahanto waxaad fahantay sida farta wax loo qorto kadib ma ku dhigi doonto. casharada socda waxaan ku arki doonaa iyadoo fartii la habeenaayo la qurxinaayo. weli waxaan ku jirnaa casharada basic ah qaabka loo sameeyo. bal hadda waxaan u guda gelaynaa qaybta labaad waxaana ku baran doonaa waxyaabaha lagu magacaabo shortcut. marka ugu horeysa waan aragno shortcut-ka dhan uu isticmaalo After Effects waxaan tegaynaa halka ay ku qoran tahay edit kadib waxaan tegaynaa halkan ugu hooseysa ay ku qoran tahay shortcut ama keyboard shortcut. waxaad isla qaban kartaa sida shortcut-kiis ka muuqda. waxaad isla qaban kartaa control plus alt plus semicolon. haddii aad intaas la qabatid kaliya halkan haddaad siisid iyo intaas inaad isla qabatid isku si weeyaan oo isku natiijo ayaa kaaga soo baxaysa. marka click sii halkan waxaa ku imaanaya sidaad ujeedid qaybtan ay ku qoran tahay keyboard shortcut. keyboard shortcut-ku waxa weeyaan sidaad arkaysid haddii aan halkan ay ku qoran tahay control haddii aan riixo halkan wax walba oo control la qabto haddii aan control a taabto waxa ii soo bixi doonaa select all. haddii aan taabto control z haddii aan taabto control x oo cut ah control c oo copy ah v oo control v haddii aad isla qabto oo kale paste ah. waxyaabahan oo dhan waxa weeyaan inaad taa kor ka aragtid mid u tijaabsid inaad shortcut-ka isticmaashaana way ku wanaagsan tahay sababtoo ah muuqaalka degdegsiimadiisa waxay kaa sahlaysaa inaad isticmaashid oo kale shortcut-ka. control x inaad wax ku jirtid oo kale control c copy-ga inaad u isticmaashid v oo paste-ga ah. waxyaabaha dhan waxa weeyaan waa dadaalka gacan fududeys weeyaan. control t oo kale haddii aad la soo baxay sida casharkii haddaba aan kuu tusinayay tagastiga inay kuu soo baxdo. sidaan kuu sheegay marka wax walba halkaas ayay shiftiga markii aan taabto oo kale waxyaabaha hadda halkan oo kale haddii aan control iyo shift isla qabto sidaa aad taabto waxa ii save gareysmaya projector-kii project-kii hadda aan samaysto oo kale ii save gareysmo. wax walba halkan oo kale ayaad ka fiirin doontaa
insha allah waana soo tijaabi oo qaabka ay u shaqeeyaan tifti keligeed markii aan taabto qaabkan kale ayay isoo bixi doonaan waxna waa ka bedeli karaa anigu wixii aan doono waan ku samaysan karaa casharkeena sidaas halkaas ayuu ku egyahay waxaan kaloo isku hambalyeenaynaa inaan dhammaynay qaybtii koowaad ee after effect oo ahayd basic inaan ka bilowno waxyaabo badan ayaan soo dhiganay qaabka oo rectangalada loo sameeyo textiga loo sameeyo sida wax loo save gareeyo layerada scale position waxyaabahaas dhan waan soo aragnay hadda casharkeena shanaad ayaa halkan noogu dhammaaday waana qaybta koowaad ee basiga insha allah casharadan kuwa ku xig waxaan noo bilaaban doonaa sidii aan wax u dhaqaajin lahayn loogooyinka loo dhaqaajin lahaa qoraalada loo soo gelin lahaa muuqaal yar oo green screen wata ayaan ku samayn lahayn masking tool anoo isticmaalayna waxyaabahaas dhan hadduu eber raalli ka noqdo waan soo arki doonaa insha allah casharkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu